السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم halkan waxaan u joognaa goobtan aan joogo oo ah xerada gas emta loo yaqaano oo xero aad iyo aad qaali uga ciidanka qaranka airportka kaga taala dhinaca galbeed waqooyi ayaa waxa jirta meesha la yiraahdo shalay halkan waxa ka dhacay hadal badan baa ka jeediyeen ay ku durayaan ciidanka qaranka iyo madaxdiisa oo ay leeyihiin garoomo la cunay odayaashan saaka waxay noogu yimaadeen oo ah cuqaashii iyo odayaashii beeshan masallaha jaarka la ee garoomadan lahayd inaanu ku wareejino garoomadii ciidanka qaranku bixiyay oo ka kooban 3 garoon 260 mitir iyo 100 dhinaca kala ah iyo kii basket ko gurigii basket ko dhisan oo taliya ciidanka qaranku uu bixiyay ayaa rabay inaan odayaasha ku wareejiyo si aan loo ay been u noqoto arintii shalay la sheegay garoomo la cunay waxba ka jiraan cadeyno ayaanu jeega waan ka baxay Chief Aqal Xasan Madmax Beeyagoy inta markan ka gudbo way mahadsan ciidanka qaranku wuxuu yiraahdaa naleeya ku waramay aw gardamo ku waramay shalay war baa la soo gaaray fara badan aad iyo aad xiisa dalka uga kiciyay saakana waxaanu aragnay wax wanaagsan oo ah 4 garoon jiinka soo socda iyo inta adduunku jiro caawa manaafacaadkiisa ay ardaydu ka faa'iideysanayso naga gudoona la yiraahdo waana ka gudoonay waxaanu uga gudoonay wax maalin la cunaa macna ma leh waxa dugsiga la dhigayo laakiin wixii mustaqbala weligii joogta ah caawa dadka caawa soo socda ay ku manaafacaadayaan iyo kuwa joogaaba ayaa muhiim waxa ayna gudoonsiiyeen waanu ka gudoonay waxii caawa ay ku dareen dhismaha dayra ay qabanayaana waanu la wadaynaa cidii ay xilka u saareen lacagta ugu dhiibeen waanu la dhamaystiraynaa inay garoomo ardaydu leedahay ka faa'iideysato noqdaan ayaanu kula shaqaynaynaa cidda gacanta ku haysa ciidanku u dhiibay waxaanu leenahay waar ninkii caawa halkan failyaru sitayo isjeebka guriga wax badan baa dhulka kale ka qaadatay allah ku calfo intan ardaydaale cidi caawa ka qaadi kari mayso annaguna ka qaadi mayno ciidanna ka qaadi maayo cid kalena ka qaadi mayso waanu ka gudoonay ciidanka 4 garoon iyo MCH ka ardayda jiinka soo socotiyo kuwa joogaan u gudoonay muraad kalena kama lihin war iska haysta faynashiina cidii halkan u guri ka hayo wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim sida odayaasha hore sheegeen magacayga horta waa Ibrahim Ahmed Cabdi Aqal Ibrahim Ahmed Cabdi waxaan ahay uqaasha beesha waxaan ay dadka halkan deegaanka u ah waxa halkan maanta aan ugu nimi laba qodob baa ugu muhiimsan waa marka koobaad arinta xalayto TV-yada laga daawaday iyo warbaahinta dhan inaynu beenino ee la iskaga hor keenayo ciidanka qaranka iyo beesha degan halkan dadweynaha degan ee kala duwan iyo ciidanka qaranka ciidanku waa ciidankii beesha waa ciidankii dalka waa ciidankii qaranka inaan la isku dhufan karin ciidanka qaranka iyo dadweynaha oo arinta xalayto ay tahay warbaahinta laga dhageystay been inay tahay amba laga daawado waxa la sheegay inay ciidanka qaranku cunayaan garoomadii dhalinyarada loogu talagalay horta marka hore garoomada iyaga u qorsheeyay maanta waxay la gudoonsiiyeen 3 garoon oo waaweyn iyo 4 garoon oo mid uu yahay kii hablu ku ciyaarayeen ee u gaarka ahaa iyo MCH
weli mabaan arag baanu de garooma ma MCH kala raaciyo aad bay u kala fog tahay ciidankiibaa garoomadii cunaya iyo ciidankiibaa 4 garoon bixiyay oo weliba dhismo ugu darayo ay deyr ku wareejinayaan seesay ku wareejinayaan way waxaad u kala fog waxaanu leenahay dadweynaha ciidankeena yaan la iska keen hor keen waxay cuneen ciidanku ma jirto dhalinyarada ku ciyaaraysa waa dhalinyarada ay dhaleen waa kuwa idinku dhasheen waa kuwaynu dhalay ma kala xigna dhalinyarada hagardaamo cidna lama jecla dhalinyarada yar meel ay garoon ka dhigtaan waayaan taas waa qodobka weyn beeninay midda labaad ee aanu halkan u nimo waxa weeye inaynu ciidankii la eedeeyay xaal siino ciidanka iyo saraakiishooda xaal baanu siinayna ma geeyaan wax aanay geeynin lagu sheego la yiraahdo waxay cuneen garoomadii caruurta ay ku ciyaaraysay garoomadii bixiyeen bay dib u cuneen in la yiraahdo waa waxaan qabanin xaal baanu ka siinay waxaanu leenahay ciidanka iyo saraakiishoodu way mahadsan yihiin sida ay noogu wareejiyeen ayaanayna uga gudoonay anigoo weliba anigu ah xogayaha cuqaasha gobolka Maroodi Jeex guddi bay leedahay cuqaashu xogayaanu ahay cuqaasha gobolka dhan baan xogayo ah maanta waxaan marxaati ka ahay inay saraakiishii ciidanka iyo ciidankoodii wada socdaa ay nagu wareejiyeen 4 garoon iyo MCH dheeraad ku ah aad iyo aad bay mahadsan yihiin وقاش أنتي كلامنا وحوي وحي الرافع راعين دونين الرحمن الرحيم مقعي وحويان كيف عاقل أبي حسن عبدي عاقل يره وحلا هاي إسفهان كا وناكسن بني آدمكو إسفهان كا أيوكو وناكسن ياي إسفهان لا أنتو هذا على اللبات ماذا هل كان wixii saxaafada aanu xalay ta ka arkaynay iyo halkan waxaan ugu nimid marka way kala fogi waxaan leeyahay ciidanka qaranka gudoomiye ku xigeenka taliyood kulligood xal waxaanu ka siinaynaa wixii aanu xalay ta ka arkaynay telefishinka oo beenoobay ayaanu xal ka siinaynaa haddii cid qoladii odayaashii shalayta xalayaan ka hadlayay ay ciidanka wax kale ku haystaan dee iyaga ka hadlan doono oo sheegi laakiin garoonkan imanka aanu joogno ciidanku annagana wuu nagu wareejiyey horena wuu ugu talagalay oo dhismaabuu imanka waa kaa dhagaxuu yaalla dhismaabay u wadaanba kolkaa ciddii dee wax kale u sheeganaysaa iyadaa sheegi doonta laakiin kani كل عمر ما يكون يسكت فذا حدا يمدنا معها وانو كحال سيني عيدا كدمانتي هذا الكيش اللي يتهالك كدا عيوانو كحال سيني رالي هذا بانو لهني وعيدا كيجي وعيدا كيقرنك هدي على بدن كي اللي هي واربل رالي هذا بانو لهني عيدا كدمانتي انت هو حير رعبه haddii dee nin dallihiyaa uu dadka kiciyo waa dhibteeda ay leedahay laakiin wixii aanu arkaynay iyo waxaan imaka halkan ka socdaa way aad bay ila kala fogyiin garoonkii waanu gudoonnay 3 garoon oo ragga iyo mid hablaha iyo xanaanadii ku taala iyo ciidankii oo u dhigay dhagaxa oo maanta u diyaara iyo dhalinyaradii oo qudhigeedu halkan u taagan oo eeganaysa dee waxay la tahay gonjo xageel wax gunta la geliyay ka weyn buu yiri fadaaxadu dee ma qabato arrinka caynkaasa ninkii wax kale ciidanka u sheeganayaana isaga u taala laakiin arrinka waa ka bari ciidanka waana ka raali gelinaynaa waana maanta politique baanu ka siinaynaa wax maanta haddii alla ma lagu fadaaxadeeyana maba jiraan ba halkan ma yaalaan sidaasaanu ciidankana uga raali gelinaynaa qaranka dhammaantiina uga raali gelinaynaa odayaasha hadalkaasi ka yimidnaha ka noqdaanoo raaligelina keenaan baan leenay assalaamu calaykum magacaygu waa caaqil cali maxamed xuseen faarax marka horan waxaaban garan lahaydo labada nin ee ciidamada qaranka inaad shiidaan oo afxumaysaan annaga gudoomiyena noogumada tihiinoo kuma raacayna taa إذا أفهم هذا يدين وكيلة هي هذه الشرارة يصير كتان مثل إنسان أفكار كوا عشان وانجا
afkayga mar dambe ku hadli maysaan ciidanka qaranka meel ka dhaca ku samayseen waanu annaga idinkala xisaabtami doonaa waxaan leeyahay taliyaha ciidanka qaranka iyo saraakiisha ciidankaba xaal baanu idinka siinay afxumadii shalaytan meesha ka dhacday wixii aa qabateenna waa wax muuqda wabilaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ciidanka laftirkiisu waa inuu relationship la yeeshaa oo markuu howlaha kale ku dhaqaaqayo marka hore dee isaguna shalay dadku laba nooc buu isugu jiray qorigay ka xanaaqday oo qorigan dee maaragtay waxay yidhahdeen qorigaa meesha lagu seesaya lagu soo kiciyey dadka qolana waxay tidhi waxa garoonkii baa la cunay horta labada mooshinaa ugu weynaa labadaasuu ahaa waxaana horta wixii danta guud waa lala culubo dadku imanka danta guud qofnaba ma ilaaliyo askartu waxay ku mahadsan yihiin dee waa ciidanka ilaa gambadho madaxweynuhu ugu tegayo oo ku salaamaya marka ciidanka ina dee horta maaragtay iyo dadkiisu inay isku dhacaan maaha kii shalay oo kale maaha dee colka lala ahaa waa carruurtoodii waa ubadkoodii dee waxa weeye talayaashu carruurtooda haddaan iyaga qudhigoodu dee askartaaba ugu dhal badan marka inay carruurta garoonkii iyo dumarkooda halkay ku mulayaan sameeyaan waaba waajib saaran horta dheer iyo waxba muu lahayn iyo sees iyo waxba muu lahayn militarigu iyagaa isxilqaamay iyagaa doonayay inay ku samey ugu wareejiyaan carruurta dayr oy garoonka u hagaajiyaan oy u ballaadhiyaan laakiin dadka ka hadlayay garoonku waa dad ku gabanayay waanu ugu fahmay inay ahaayeen waanu muraadkoodu garoonka ahayn laakiin waxaa soo arkay anugu dhahay ku soo arkay waxqabad ay militarigu u qabanayaan dhallinyarada oo garoonkoodaasi marka loo dayro ilaa 4 garoon oo yaryar oo ay isu qaybiyaan ay ku ciyaaraan u noqonayo mana jirtaa weerata wax garoonoo ay hungureeyeen waana yaabeen markii aan u tegey weydiiyey su-aasha waxay yidhahdeen carruurteeda ku ciyaartee ma garoonka carruurteeda ku ciyaaraysay ayaa nooga baqanaya waxaan u samaynaa see looga hunguray garoonkan oo dadkan dhulka ku mame aanay ugu meeraysanin ayaanu doonayna inaan ugu wareejinno sees birahana aanu uga wada taagno dowladdaasoo weliba aanu idhaahno idina soo galo oo jaajuurka iyo waxaa bixiyo dayrkanaha loogu xidho meesha laakiin waxaa la yidhahda wax aanu annagu shaqo ku leenahay manay taabaninba dee waxba kamay taabanin meesha waa soo arko garoonku waa sidiisii dhallinyaradiina waa la soo hadlay dhallinyarada laftooda waxay sheegeen in lagu gabanayo oo dad ujeedooyin kala leh ay ku gabanayaan magacooda waxaana ognahay nimada yararba ka caqli wanaagsanaa dadkoo dhan waxaanu diidaynaa wey nimada yaryar militarigan jaar baanu nahay meesha degan annaga isku hadhayna annagii militarigan in nala collaysiiyo ma rabna bay dhahay sida la wadana waxaa doonaya in nala collaysiiyo annagaana jaaro isku hadhayna dadkan waa iska tegayaan waxaan ka caddaynaya oo aan dhahaya ku soo arkay inaanu jirin haba yaraatee wax garoona oo militari qaadanayo haba yaraatee inaanu jirin balse ay wax u qabanayaan dhallinyarada balse ay wax u qabanayaan waxaasoo baahi ay qabtay dhallinyaradu way u dayacday garoonku u dayacdaa hungurigu wuu fara badnaa meesha jiray laakiin wuu badbaadaya dhulkaasi markay u seesaan militarigana dee carruurtoodiio ninna ilmihiisa dee lagama idhaahdo ilmahaaga sida dha ilmahaaga sida dha nina lama idhaahdo garoommada heshay ku ciyaarto waa foolxumo weeye markaa in lagu eedeeyo iyaga waa foolxumahaadi weye waa meelkadhacaadi weye waa gaf weeye ninka naftiisa u horo carruurtiisa ilaa carruurtiisiiba wax yeelayaa wax meesha qabta maaha waxaa shaqada waxaa leeyaa lagaga hadlay warbaahinta hala iska ilaaliya ceebaynta iyo fadaxadaynta ciidamada qaranka waxaan jirin ayaan laga sheegin ragga waaweyne xala tiifiya ka hadlaya waxaa leeyahay inaa xubsataan baa habboonay sidaanu annaguba u hubsannay ee nugunta u soo taabannay inaa xubsataan baa habboonay intaydaan ka hadlin tiifiyada oo idaan militariga ceebaynin ceeb aanu geyin ceeb aanu lahayn meelay soo martay aanay jirin ilaa la daba gashaa
وفرحمه ويا وحلا يمكن سميسته وحيد دمبه كفير صلاة وحد هذا وحمايه انت أعرض لأن أفكار دكسب حد يقول ما يفهمس وحد كواد ليس وين نبغى واحد كفير ستي وانا كبسة نقضي وانا نبث ذلك هذا الكاد لا ضحي هذا الكبسة نقضيه هدي هذا الحكم التلالة وأو حكتنا تلو دي أولو وساعد واحد حجب بينو انتو كبيرو بياي طب حاكم ما يريد مركانو ويلو الصوت هاي شاشة أو مدو نبدأ وليسي أو حلوك واحد لين الرواية والحبك التلو بحالها اللي يبدأ علم الله عيبانت العيبين Kan hayat